walaalayaal sida aan noo barateen program badan aan idiin soo daynaa programmadeena walaalayaal waa badan yihiin laakiin marka ugu horeeyo islaamo buraanburacay oo bam lagu rakibay qaramada midoobay oo faraha ka taagtay showbiyoodka carruurta Soomaaliya kusoo foodle dad tahriibayaal badda laqday dowladda Yemen maxay ka damacsan tahay Uhuru Garden oo ku guuleystay madaxweynaha Kenya ay arrimo xasaasi ah iyo waxaan idiin soo daynaa wara Cabdikariim ciyaarta joojina oo drop this is not my style man. Drop it. Thank you. Dhinacayga waxaa fadhiya General Waawarey waa nin laandheera nin aan baarka sare ka dhal baahi baa dilay Soomaaliya Maxamedey iyo waxaa dhinacayga fadhiya Abaa Xaaji oo rabo 2020 inuu madaxweyne u tartamo qadka telefoonka waxaa si toos ugu jiro mudane ka tirsan baarlamaanka oo asagana aan wareysi aan la yeelan doono ha yeeshee marka hore waxaan ku hormarayaa General Waawarey General saddexda bilood ee la soo dhaafay Minnesota nala joogtay oo baraf dadka xaqiyay dadku waxay isla dhaxmarayeen moolkan 24ka iyo karamel dadku waxay isla dhaxmarayeen in dhabarka laga soo taabtay arrintaas maxaa ka jiro arrintaas waxba kama jiraan waa ku turkuteena raad ma laha Minnesota waxaan u joogaa haddaan ahay General Waawarey arrimo xasaasiya oo la'aantay aan dhaqaaqay arrimahaas u joogaa nin dhabarka laga taabtana waa ka qiimo badna okay nin la dheeraano asal dhabarka laga taabta waxba kama qabo dhinacii waxaa fadhiya Abaa Xaaji waa nin dhalinyaraha oo kontankii aan gaarin 48 sano soo noo sheegay waaye hadduu ilaahay ku wuxuu ku baxay kulliyadda la foole waa kadib waxbarashadiisa ma sii wadanin laakiin wuxuu ku hanweeyaa inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka 2020ga markuu dowladdan dhamaatay dowladda ku xigta tan ku sii xigta ayuu rabaa inuu noqdo wuxuu rabaa inuu ka hadlo dhaqaalaha ha yeeshee su-aasha taagan ayaa waxay tahay asaga waa ganacsado yar oo foonkaarada dukaan uu leeyahay iyo wuxuu leeyahay home care uu share ku leeyahay maxaa ka bedelaysaa Soomaaliya mustaqbalka Soomaaliya dhaqaalaha iyo Soomaaliya waa wada ognahay xataa cirbad soo ma saarto oo maryaha lagu tasho xagee dhaqaalaha iyo ka imaanaya mustaqbalka 2020ga maadaama arabta madaxweynaha Soomaaliya horta walaal waa mahadsantahay soo dhaweysay aniga waxaan rabaa dalka inaan dhiso in ganacsiga casriga hadda adduunka jiro maadaama qurba joogo muddo 8 dalkii ugu dambeysay waxaan rabaa inaan nidaamkan hadda casriga ganacsiga casriga inaan geeyo qorya meesha jiro sax qoryaan bedelayaa waxaan leeyahay kaalay ganacsada nabad ku ganacsada lacag subsada guryihiina dhista dariiqiina dhisna airport casri ah dugsiyo casri ah wax walba casri ah hadda walaal lacagta intee ka imaanay wadanka markuu dakhli leeyahay Soomaaliya wax yaala male daqiiqaha la soo bariyo iyo wax la soo bariyay ay isku haystay hadda Soomaaliya cirbad soo ma saarto hadda tusaale ahaan Ethiopia India iyo China amal gelisay Soomaaliya India iyo China ma rabaan inay maal gashtaan Mareykankan uu ka gaabsanayaa xagga dhaqaalaha ka imaanaya nidaam aan aqaanaa oo dalkeen waa buuxa khayraad ka buuxo dadka la tusaya China la keenaya Ruushka la keenaya iyaga wax dhisaayo waxay dhisaan ma badqaana shaqo abuurmayso okay dhaqaalahan way iska imaanaysaa okay marka nidaamkaas anaga way nidaam jabkii ku jiro waa hadda mar rab inaan sheego laakiin diyaar baan u ahay waa mahadsantahay mudane General oo ku soo noqday qadka telefoonka ay qabsanayna mudane oo ka tirsan baarlamaanka mudane mii maqashaa hello oradeerkii mati arf jooji mudane marka hore waad ku mahadsan tahay waqtigaada qaaliga ah oo aan siisay mudane haddii aan saddex u kala qaadno dowladda Soomaaliya maxkamadda iyo dowladda iyo baarlamaanka waa sharci dejintii fulintii iyo ansixinta adigu waxaad ka tirsan tahay sharci dejintii gobolka Minnesota waxa uu diiwaan gashantaa inaad tahay oday howlgaba oo beeshan oo lacagta SSI-da qaato miyuusa aqligaad ku goobayn aqliga fiyo arrinta iyada ma su'aalaan ku weydiiyay kuma caynine waxaan ku dhahay Amerikaanka diaper bay ku xireen Soomaalina sharcigeeda dejisaa marka arrintaas aan soo dimi deg leenahay inaan su'aashaas ay ku weydiiyeen reer Minnesota maxaa arrintaas ka leedahay anigu aqoontaydaan ku tegay halkaas haddaan halkan aan ka sharci fiber inaan xirto iyo exercise inaan qaataan Mareykanka joogo marka waxaas inaad joojiso weeyaan macnaheedu ma hadda warqadii yaalo oo home care ka tirsan tahay oo Minneapolis oo SSI lacagta lagu siiyay Soomaaliya oo hoog iyo habaarka qabtane waxaad ka tirsan tahay baarlamaankeeda sharciga u dhijisaa intaas uun baa ku weydiin kuma cadaabin
وروسطي وأنا مقرأ نوضي دلقة xanaaqo mudane okay mudane waa mahadsan tahay general waawaray ayaan kusoo noqon doonaa general waawaray horta mis taqaanin mudanaha baarlamaanka adeer wax dhaabar xirta anigu barashadooda iyo aqoontooda uma baahni nin dhaabar xirta see u bartaa dhaabar baa u xiran drop it DJ وما سنتي عبد الكريم مدني هرت مستغني هذه جنرال والله aqooni inaan bartani ka marrabo ايه runtiina siyaasadiisii baan galay Aye. waayo dadku dilaa ma anigu qof dadka dilaa ma rabo inaan barto او جنرال ما تخاوس مستغني هرت ma aqoontiisa ma barrabo Ma rabo. qof wax dilaayo Ah. ana shaqo dhis kulay اوكي جنرال هذه مستغني adeer waa isbaranaynaaye bal soomaaliya mow اوكي waanu isbaran اوكي قدك تليفونك ايان قبسن لنا دونا ددوينها رايغا اي كقبان مادام اسو كينا جنرال واوري يا بابين ابا حاج او 2020 ان u tartami doono loolka madaxweynenimada Soomaaliya walaal mi maqlayda telefoonka afka saar TV-ga dami caruurta aamusi maxaa la dhihi jiray waqti badan walaal lama hayno how dhawaan filinjeerka giriir uu sameynaya isdhaqsay isfooluday isfalamaysiiyay su'aashaada waa maxay walaal hallo qadkaas waa ka baxay general hadda hadduu Uhuru Garden Uhuru Kenyatta ayaa qabsaday Kenya Soomaaliduna way taageersan tahay oo shoti shalay lagu dhawaaqay xalal lagu dhawaaqay faa'iidada uu Soomaali u hayo maxay tahay Uhuru Kenyatta masawaaxiliga maxaa madaxweynaha Kenya sawaaxili waxba nooma hayo wax uu ku hayo wax uu noo hayo male oo hadda ciidamadu keenana ciidamada waxay noo yihiin waardiye haye annaka militariga nimankii baska cunayay oo ciidda dhex gelay waa dadkeena waa Soomaali waa gartay markii yaatiga xoolaha ku ilaashana ayebo oo ari raac iyo waxaas noo ilaaliyaan oo hadda ma qofka baarta xamar agaarkeeda waa kuwa noo ilaaliya marka anaga sawaaxili waxba noo qaban mayaan okay waxba kama qabo qadka telefoonka ayaan qabsan doonaa walaal magaca xagee ka soo wactamaysaa su'aashaada boobsi waqti badan ma hayne ya waa hadal halo qadkaas eeya cuna miya ka soco su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayo waxay tahay mudane halo walaal mii maqlaysaa su-aashaada waa maxay walaal su-aashayda waxa weeye nin horta adigu maxaad maalin walbaba aad waxaan adeer macaan aad usoo daysaayo wax fiican aad usoo dayso oo dadku faa'iidayaan waxaanaad soo daynaysay waa maxay adeer aniga ma soo dayno programkan free style la yirahdo horta koodhe haddaad ka heli ma iska gudbisa adiga maxaa kugu dhigay ma America intaasoo journal ay leedahay ma iska fiirsi journalada kale su-aal ma qabtaa mise anaa ugu mashquulaysa adiga ma adeer macaan waa iska rabaa inaan iska daawado Soomaaliga aniga afka qalaadna ma fahmaaye waa gartay wax fiican soo daaya adeer macaan waayahay waxaan ku soo dayn doonaa fanaan aad loo jeclaystay saasaa noo balana drop DJ gabagabadii ayaan soo gaarnay programka horta marka hore waa maasantahay jenaraal waa waray guuleyso ma fahamtay aada u maasantahay mudane baabiin haba xaaji adigana aada u maasantahay guuleysaan ku leeyahay Soomaaliya ugu dambaysteediisa freestyle camera cidii dhibayso howl u taalo waa cidii kor qabta howl u taalo waa waxaanay ta camera waay waxa maasantahay drop DJ